muqdisho waxay qaadatay tii Soviet Union iyo Eastern Bloc countries ay siiyeen oo weyneed waayo Ethiopia 20 kunaba ay haystay ciidankooda annagana si 6 kun lagu haynayeen Soomaaliya markaas waxay ku bilaabatay inay ku dhawaato ku sii durugto dhinaca eastiga u sii durugto durkadu way sii socotay ilaa 69kii markii ciidamada Soomaaliyeed ay qabsadeen wadanka oo ay afgambiyeen dawladda civilianka markay afgambiyeen Siyaad Barre iyo askartiisii waxay xireen baarlamaankii xisbiyadii xireen waxay qarameeyeen private corporations Washington taa haddana way ka sii caraysiis sidaas ay tahay haddana diplomatic relations uu sii socday haddana 1972 ayaa General Siyaad Barre wuxuu ku dhawaaqay scientific socialism so 72 ma ahayn markuu ku dhawaaqay scientific socialism taas haddana Mareykanka sii xumaysay waxaa ka sii daray Soomaaliya waxay la saxiixatay xiriir la yiraahdo friendship treaty ay Soviet Union la saxiixatay waxay noqotay wadanka ugu horeeya Afrika madow ee Ruushku siiyo xiriirka noocaas Mareykanka iyo Soomaaliya waa isku sii xumaadeen laakiin haddana waa iska xiriirku waa iska sii socda haba xumaadeen waxa sii xumeeyo kale base Soviet Union ka siisay waxa kale sii xumeeyay Vietnam ships oo merchant ships ay Soomaaliya ku deeqday calankeeda inay ku shaqeystaan waxa soo dhan Mareykanka way ka caraysiisay haddana waa sii socotay waana arki doontii sababa jirta bas marka Somali relations iyo Soviet Union Somali US relations wali laakiin hoose u sii socdaan inkastoo oo jira haddana hoose u sii socday ilaa 1978 markii Soviet Unionka ay Ethiopia ku wareegtay oo Soomaaliya ay uga tagtay banaanka taasna waxa loo yaqaanaa Soviet perfidy khiyaanada Sovietka taasa marka Soomaaliya ku soo celisay Western Camp marka in fact markuu soo galay Jimmy Carter madaxweynenimada 1976 Secretary of State kiisa oo leeyahay Cyrus Vance wuxuu ku amray wuxuu yiri get Somalia our friends on this part dhinaca Soomaaliya dhinaceeda kale poor country ahead oo u baahnaa Mareykanka soo way ku wareegtay Soomaaliya iyo Mareykanka waa isku soo dhawaadeen waxay sameeyeen military treaties economic treaties agricultural treaties cultural treaties badan anigu waan arkay xiriirkaas wuu sii socday until the collapse of 1991 xiriirka Mareykanka Soomaaliya saasuu ku socday foreign humanitarian treaties and aid by the kala hadlaya upon independence Somalia waxay heli jirtay macaawino badan ee qarbi ka heli jirtay Mareykanka uu ka mid yahay in early 1960s I think in 1963 meelahaas waxa dhacday famine badan ku dhacday Soomaaliya Mareykanka food aid ayuu siiyay Soomaaliya 1964 USAID waxay furtay College of Education ayadaana qarashkeeda bixinaysa scholarships ee Soomaaliya siisa in addition Peace Corps iyo Mennonite Mission ka way yimaadeen remote village meelo fogfog oo maaragtay Soomaalidu ay isku ka furinayeen inta tagayna wax ka qabanayeen haddana costly work 77-78 markuu dhacay United States provided humanitarian assistance to displaced Somalis intaas waxaa sii raaca Washington waxay fungareysaa United Nations organizations iyo other international non-governmental organizations oo caawiya Soomaaliya ilaa iyo maanta foreign and humanitarian aid ku maba joogsan si kastaba ama aan east aadna ama westiga aadna isna uu jiray
haddana wuu jiraa ama terrorism hana lagu sheego ama la iska daayo. Before 1991, when Somalia collapsed, Somalia was one of the largest recipients of foreign aid in Africa, if not in the world, per capita in the world, if you would. Markii dowladda jajabtay xiriirka labada wadan haddana wuu sii nusqaamay, wuxuu gaaray sub-state level, xagga dowladnimada waa ka hoos maray, wuxuu gaaray civil society iyo mataqaanaa NGOs iyo noocaas in xiriirkooda lagu conduct garay. Soomaaliya waxay gashay civil war oo without end ah, dowlad lala xiriiro Mareykanku la xiriiro ties la yeesho waa la waayay. haddana massive famine ku dhacay, indhaha lagama qabsan karin, Mareykanku indhaha kama qabsan karin Soomaaliya. So President George Bush the senior wuxuu launch gareeyay Operation Restore Hope oo hadda laga dhawaajiyay in 1992. Although the project saved 300 to 500,000 Somalis, the plan was considered a failure by the world over. Why? Critics charge mission creep wax la yiraahdo. In missionkii ahay in dadka lagu caawiyo lagu bedelay state building. Taasaa keentay in missionkii faa'iidada badan keena haddana la yiraahdo waxba kama soo cadaan. The killing of 18 US Marines and subsequent dragging of their bodies in the streets of Mogadishu ultimately rendered the mission untenable. In waxay qasabtay laga soo baxo President Clinton, George Bush ninkii ku xigay Soomaaliya uu ka soo saaray ciidamadiisi 1991 ilaa iyo hadda US was distancing itself from Somalia. Marka waxaan imaanaynaa post 9/11 US Somalia relations. markaas haddana waxaa bilowday relationship cusub. maalintii 9/11 dhacday ilaa iyo hadda Somali US relations were very difficult, inordinately difficult. saddex sabab ayaana keentay taas. midda ugu horeysa waxaan ku magacaabay the ideologization of US foreign policy. America foreign policy ideology loo bedelay. awal annakoo ah communista waan la xiriiri jirnay, annakoo west waan la xiriiri jirnay, laakiin hadda waxbaa isbedelay. waan arki doonaa waxa isbedelay. ideology baa laga dhigay fight against terrorism. Structural complexity of US foreign policy waa mid labaad. US foreign policy maaha Soomaaliya oo kale hal ama boqortooyada Sacuudiga oo kale hal inuu leeyahay. I want this maaha. dad badan ayaa karti leh inay sheebgareeyaan dowladda Mareykanka foreign policy-geeda wayna sheebgareeyaan waxna waa ku darsadaan. Structural complexity-ga taasan ka wada. Low priority Africa ay leedahay oo US aynay weli macno u lahayn Africa oo dhan, especially forget about Somalia. Africa oo dhan aan macno u lahayn. waa ogtiin Ronald Reagan inuu indhaha ka dabooshay Africa. waa ogtiin Rwanda markii massacre ka dhacay indhaha laga dabooshay. waxaasoo dhan Africa recently waxaa laga dhigay maaragtay non-issue. marka aan soo kala qaado saddexdan dambe oo ah ideologization of US foreign policy, structural complexity of US foreign policy, the low priority of Africa in US foreign policy. aan ku bilaabo tan hore. Diplomacy, Cabdirasaaqna waa joogaa, waa isaxi karaa. Diplomacy sida anaka kale buugtana loo kugu dhigo ma taqaano permanent friends iyo permanent enemies.